السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ملكستو عالم كجوكتين وهذا السلام يا وولاشن وبحينا موسى إن مدأها وذا كمقنيت طبعا محمد يقصوا علي يوتيوب شانل كيغا waxay ugu socdiyay waxa weeyaan xiisa aan idin xiisay xiisa aan u xiisay casharadaydii sababta aan maqnaana waxa weeyaan in maaragtay shaqo iyo iskuul waagi aan soo gali jiray iskuul ma dhigan jirin laakiin hadda iskuul baan tagay ardayd baan noqday dadka qaar baa waxa laga yaabaa in isdhahaan oo xiina soo tay umulisa ahayd ama dhakhtar ahayd labadaas ba midna maanan ahayn weli arday baan ahay waagaasna waa ahaa haddana waa sii ahaanayaa إلا أنت ما ركتين وشيء كلمة أرضيات بان أحانيا هرت واحد ربي أنا أدري وكل هالسنتين دمانتين سيدات وحيستين سيدات ما ركت يجول وشين قاركين وحي يصير هذين قبل محاكو دعي محنون سطي أنت ما أقول عن الحمد لله رب العالمين وأسكك يسوع قارن إباتوين لكن الحمد لله رب العالمين إلى ما هتسكله هذا الصباح ربا إن شاء الله تعالى أنا صور نقوى maadaama gabdho walaalahay muslimiin ah Soomaaliyeed ay ii baahnayeen ama sidoo kale aan u baahnaa inaan waxaan rabaa insha Allah soo noqdo hawada hadaan ka maqnaana waxaan uga maqnaa waan ogaa intii muhiimka ahayd inaan idin soo galiyay waan ogaa inaad ku ceshan kartiin wax saa'id iguma soo biirin hadday jiraanna wax iga maqan oo iga dhimanaa waa soo galin lahaa laakiin ما أمليني إني معركتي واحد كريم إني جرتو أما أنا عن ذي كسر بيرن لها وعلى غير هذا مستقبل كإن معركتي وحيابي يرجوني إني يوصل قرآن لكن الحمد لله أنتي بنيت وسوكري وحان رجيني إن أذكر قوقنا عذاب سيدات لسه تامبا عالم كمان توا إسبدري تروين بنوصل قرآن تنقوين إيمان تتهاي كورونا فيروس كورونا فيروس أما سأتقانا با كوفيد 19 وجرو الله أعلم سببتي كنت معطي إيو ماركتي عدة كانتي إله لا جروين كان لكن إن بني آدم أي سببين إيو إن إسكت أغلطي مقرانينو لكن وحرجيني إني تا امتحان كمدا امتحان هذا وإلهي بني آدم كيسا مرسيو امتحان كستو معنيه يماده dadka muslimiinta way saamaysaa ayagoo lagu imtixaamayo sidaa daraadeed mar walba waa inaynu niraahno alxamdulilah mar walbana waa inaynu samayno ka hortag waa inaynu soo ogaano akhbaar ku saabsan cudurkaas iyo dadaalo inaynu samayno saa uga hortagi lahayn dadaaladaas waxaa ka mid ah siday ay noo sheegi doonto gabar saaxiibtay ah walaashaya ila shaqayso shaqo wadaagnahay ayaa maaragtay faahfaahintoon doonto ka hortigitaanka balse aniga waxaan rabaa inaan kaliya idinku biiriyo calaamaadka maxay tahay maxaa lagu kartaa coronavirus inuu ugu dhacay maxaa lagu kartaa horta sideedaba hargab buu qaban jiray calaamado badan waa arki jirnay calaamadihii badnaa aan hore u arki jirnay jirooyinka kala duwanaa wax ka mid ah ayuu leeyahay kan laakiin haddii micnihii aad isku aragtid calaamado ka mid ah qasab ma aha inuu corona noqdo balse waa inaad maaragtay adiga laftigaaga fiiro gaar u sii yeelatid talo ma coronihii la sheegayba maxaa ka mid ah calaamadahaas marka calaamadahaas waxaa ka mid ah qandho waxaa ka mid ah duuf uu yeelan karaa ama duuf uu ku bilaabmi karaa waxaa kaloo calaamadaas ka mid ah in meelaha kala goysyada ah ama laalaabatooyinka in ay ku xanuunaan inuu jirka dhan ku xanuuno ayaa la arkaa haddii marka calaamaadkaas aad isku aragtid qandho fara badan uu leeyahay qofka laba toddobaad uu ku hayn karo mararka qaarkood waxaad dareemaysaa madaxa inuu maaragtay aad moodid inaada madaxaaga qaadi karin madaxa uu maaragta ku weyn yahay saan sheegana calaamaadka qaar waa la arkaa qaarna lama arko qasab ma aha kulli inaad wada dareentid laakiin qufacaas qandhadaas jirkoo ku xanuuno laalaabatooyinka ama meelaha maaragtay kala goysida oo ku xanuuno waxaasoo dhan baa waa la isku arkaa marka haddii aad isku aragtid walow ay walaashii Saciide Maxamed ay idiin faahfaahin doonto haddaad isku aragtid waxa weeyaan gurigaaga joog dadka kale ha gelin si ay maaragtay isa u faafin cudurkan dadka waayeelka ah iyo dadka jirooyinka caadiga hore u qabay haday noqon lahayd sonkor haday noqon lahayd dhiikar dadkaas wuu u nugul yahay cudurkan marka sidaa daraadeed naftaadana asxaan u samee nafta walaalaha asxaan u samee
sidaa daraateed gurigaaga joog muddadaas aw xanuunkan uu ku hayo maxaa yeelay dan nooguma jirto inuu faafo annagu nagu soo noqonaya awlaadeena kusoo noqonaya ehelkoona kusoo noqonaya asxaabtaada kusoo noqonaya cid walba kusoo noqonaya waddanka o dhan waa lagu maranayaa haddii micnihii aan isku dayno inaan ignorin ku sameyno cudurkan marka sidaa daraadeed calaamaadkaas haddaad isku aragtid waxyaabaha qaarkood aad samayn karto waxaa kamid ah inaad biyo badan cabtid haddii neefta kugu xirmato oo sanbabada intay ku buuxsamaan ay naqasku kugu dhigo markaas wac isbitaalkaaga dhakhtarka la xiriir mar walba isbitaalkaaga waa wad wici kartaa adoo akhbaar saa'ida raadinayo adoo rabo in maaragta wixii aad samayn lahayd inaad weydiisid ama calaamaadkaas hadaad isku aragtay inay kaa jaahil bixiyaan mar walba dhakhtarka waa la xiriiri kartaa adoo wacaya marka sidaa daraadeed insha allahu tacaala allah subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ramadaan waxba noogama harsana wuu soo dhow yahay in allah subxaana watacaala intii ku dhacdayna uu uga dhigo dembi dhaaf iyo maaragtay caafimaad taamana inuu siiyo inta ilaahay ka badbaadiyeyna alxamdulilah inaan alxamdulilah niraahno marka sidaa daraadeed walaalahayga aan jeclahay waxaan rajeynayaa walow aanan xanuunkan aniga aanan aad ugu dhegdaloonin haddana waxaan jeclaystay in aan walaalahay la wadaago wacyigelintan naguma yara wacyigelin hadda waa aragtay iswiinanta aan ku noolahay magaalada caasimadeena stockholm waxaa ku la'day soomaali fara badan shalay keliya waxaa ku dhintay 20 qof ayaa shalay ku dhintay soomaali ma wada ahayn laakiin shalay keliya hal maalin gudaheed waxaa ku dhintay ku dhawaad 20 laga yaabay inay ku dhaaftay laga yaabay inay inteedii tahay marka Soomaali badan way ku jiraan dadkaas dhintay sida u bilaabataba cudurkan Soomaali badan baa ku dhintay waa aragtay jaraa'idada lagu soo qoray inay Soomaali ku dhinteen waa aragtay sida cunsuriga ay uga faa'iideysteen waa aragtay sida micneen loo leeyahay Soomaali waxa u keenaysa in cudurkan ay ku badnaato koow luqadii ma yaqaanaan laba guri bay degan yihiin oo maaragtay iyagoo tiro badan ay guri ciriiriya ku jiraan saddex nadaafadooda xun waxyaabo noocaas oo kale taas ka taqaan cunsuri weligiis waa cunsuri wuxuu doonuu sheegayaa weligiis raali kaama noqonayo laakiin aynu dadaalno Soomaaliya aynu dadaalno بإذن الله كريم وحرجينيا إن عذر كان الله سبحانه وتعالى ونذا قبطه إذن كان واحد الله هي إلهي ميشا بشوكتين هذه كأمان صدق أنا قلنا صدق كله أيضا الدين السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي رضا سعيدة محمد وحانا هاي دولة waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo xanuunkan adduunka oo dhan ka qayliyay oo la yiraahdo coronavirus ama COVID-19 sida qof walba u yaqaano wixii calaamad ah wixii lagu garto walaasheena ubax ayaa ka hadashay anna waxaan rabaa inaan ka hadlo sidii lagu xakameyn lahaa ilaahay baa xakameyn karay biidnillaahi kariim inaan dadaalno xanuunka aan la isqabadsiinin qaasatan waaridka ama waayeelka xanuunku way u nugul yihiin ama way u jilicsan yihiin saa u taqaaniinba in qofka waaridka ah guri gooni haduu degan yahay gurigiisa aan la soo booqanin sanaanta laga ilaaliyo carruurta aan loo dirin haddii aad wax u qabanaysid ama wax u gadaysid albaabka horena u dhigtid oo ka soo noqotid ayadan caasinimo ahayn dadaal ay tahay xanuunkaas maanta oo faafaya in calashan aan loo geynin ay tahay macnaheedu uu yahay inaan waaridka calashan gurigooda loogu tagin waxaan kaloo jirta qofkii ay la degan yihiin guri gooni ka deganina waaridkiisu inuu hadduu heli karo qol gooni ah inuu waaridka dejiyo carruurta uu ka celiyo si carruurta ugu tagin musqusho kala haday musqul gooni u heli karaan musqusha goonida ay waalidkaas maxay ahayd musqusha goonida ay isticmaalaan oo dad kale oo la isticmaalin haddaan la heli karin marka la isticmaalo dad kale isticmaalaan in laga nadiifiyo si ayagana u galaan biidnillaahi kariim taas ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka rajaynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga badbaadiyo waxaan kaloo idiin sheegaa walaalahayga sharafta le meel kastoo adduunka aad ka joogtiin inaad maxay ahayd xanuunkaas qof kasta oo isku arka xanuunka inuu gurigiisa isku karantiilo oo gurigiisa ka bixin si uu umada kale u gaarsiin waayo adoo xanuunka qabaad maanta banaanka u baxda intaas oo qof laga yaabo inaad gaarsiiso laakiin ta guriga ku jirto adigeena waa isku danayda ummadii muslimiinta ummadii kale banaanka kugula nooleen waa u danayso oo maada gaarsiin xanuunkii marka in la dadaalo qof walba mas'uuliyad ka saaro inuu xanuunkaas inuu safaafin oo inta karaankiina maxay tahay xanuunkii inaad guriyina kula jirtaan insha Allah biidnillah laba week ugu badnaan ayaa la yiri guriga lagu xirnaado haddii aad adeeg u baahato ama wax inaad soo gaarto aad u baahato inaan qof walaalka ama qof aad maxay u dirsato lacag ama iswiisha hadda jira adduunku waa ilbaxay ama koonta lacag u shubto lagu soo adeeg albaabka hore lagu dhigo halka aad ka qaadatid insha Allah kariim
xanuunkaas oo nooc walba kugu soo mari kara daduu qandho ku qabanaa daduu si fudud u mara ilaahay biidnillah ilaahay naga badbaadiyo subxaana wa tacaala haddaad diif isku aragto haddaa qandho yar isku aragto haddaa fashiilin kale ku xitaa wax yar oo halasha hargabaa isku aragto inaad gurigaaga ka bixin ummaddii inaada gaarsiinin waa muhiim inaan dadaalno khaasatan dadkeena soomaalida afar ayaa nagu mudan waayo waxaa laleeyahay soomaali waa dad jaahiliin wax ma akhriya sideed walaashay waxay idiin sheegtay inaan dadaalno war xanuunkaas insha allah inta xakameyn karna aan xakamayno nadaafada aan ku dadaalno maxay ahayd qof walba maxay ahayd saabuunta waa muhiim inuu qof walba gurigiisa saabuun kale way u taalo qof saabuun la'aana ma jirto laakiin inaan dadaalno xanuunkaas sida u xakameyn lahayn oo naxalasha ummadda u gaari lahayn insha allah kariim waxaan rajaynaynaa hadda waxaa lagu jiraa shacbaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu khayrkeeda na soo xijiyo ilaahay noogu dambi dhaafa subxaana wa tacaala bil barakaysanaa soo socota idana insha allah ramadaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala ramadaankeenna inaan cibaadadeena gudano ilaa insha allah masaajideena la xira maanta ilaahay subxaana wa tacaala uu noo furo hadda masaajid way naga xiran tahay hadda usaan kusii socdan oo malayma in masaajida la tegi doono ilaahay inuu xanuunkaa naga qabto subxaana wa tacaala walaalayaal aan dadaalno xanuunka aan qabanno ilaahay baa wax qaba kare annaga karaankeenna ah booqashada aan yarayno isku imaanshaha aan joojino gacanta la iska salaamaa hala joojiyo gacanta ugu badan inta xanuunka faafidaa la dhaha la iska joojiyo qofku inuu qofka ka fogaado eeban haddaad xataa xanuunka isku ogeyn dadka hoosta inaysan kasoo gelin ay kala fogaadaan waa muhiim shay aad iyo aad muhiim u ah marka biidni illah saas ayaan idiin rajaynaa khayr baa idiin rajaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala xanuunkaa naga dul qaado nagana qaado qurbadiisa iyo dhibkiisa biidni illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu